لم تخرج الدنيا من العدم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أسباب التيمم بوريسك فصل كان وحو بابيها أسباب التيمم وحيابها بوريسك كان قفكم وحو بوريس كرا سواها إنه قف كان بوريستو كيني كرا محاكمة. أسباب التيمم سببها بوريسك 3 وسدح شيء أي الله بوريس كرا. فقد الماء بيه أو لوايه فقد الماء بيه أي لواي بيه قف كان إنه وايه بيه إنه هلي واي فقد دقاسي وحو نغن كرا biyihii inuu aagga guriga isaga usan haynin inta ku dhow oo isaga ku xeeran oo ka waay isaga inuusan haysanin inta u dhow uu biyo ka raadiyeen oo ka waay taas laga wada. falam tajidu ma'an haddaan biyo helin fatayammamu qasda sa'idan arra qasda la ilaahay saas uu leeyahay. wal maradu jiro biyihii sababta muxuu ahaa in la booraysto la keeni kara waxaa ka mid ah qofkan wuu jiran yahay wuu xanuunsan yahay xanuuna haya ama xubnaha qofkani uu ka weyse qaadan lahaa ayaa waxaa saaran kabbaa saaran ama sharoortaa saaran oo loogu talagalay caafimaadkiisa darteed. taas marka iyana waxaa la leeyahay بوريست. وإن كنتم مرضى هدي أجرنتين أو على سفر أما سفرتين أو فلم تجدوا ماء أدنان بيهلن فتيمموا سعيدا طيبا عرى النظيفكم بوريست عليه. تاس مركا إيانا وحالة سفري هدي قفك أو جرني هاي إنو فسح أو هايستو إنو بيه دبيان أما بيه بعذر كبير زيادين أيان ama xubintii waxtarkeedii baa tagaysa ama meeshii biyo ma la mari karaba jirid intaas soo hoos galaysa. wala ihtiyaaju baahi ilayhi bihi loo baahan yahay bihi baa loo baahan yahay wala ihtiyaaju bihi ay baahi ilayhi bihi loo baahan yahay qofkani wuxuu u baahan yahay bihi inuu isagu cabo ama wuxuu u baahan yahay xayawaankiisa ayaa u baahan لعطش حيوان لأجل عطش حيوان أما نولة أون كيس درتت لعطش حيوان نولة أون كيس درتت حيوان كاسولي محترم لحرمايو حيوان هذا كوا أن لحرمين أياجره كوا سونو كين دونا مركو حليه بيه سببت الله بوريسانا سدح ذا سبب بيه إن لوايو إن لحنوسين هاي biyihii baahi in loo haysto aysan baahiyahana aysan wada kaafi karin biyahan la haystaahay weysaqaad iyo cabitaan kuma wada filna cabitaan bisay ku filan yihiin waxaa la leeyahay hal laabo hana la booraysto saas ayaa la leeyahay. marka saddexdaas sababood ayaa loo booraysan karaa. لعطش حيوان درتيس حيوان كاسو محترم oo xurmo leh xayawaanka muxtaramka ah waa xayawaanka ay xaraam tahay in la dilo waxa kamida eyga lagu intifaaco ayaa kamida ama waxyaabaha dhib iyo dheef midna aan lahayn xayawaanada dhibka iyo dheefta aan lahayn oo qofkiina dhibaynin qofkiina macnaha wax u soo kordhinaynin iyaga laftirkoodu waa xayawaan muxtarama wa ghayrul muhtarami kan aan xurmada lahayn xayawaanada aan xurmada lahayn 6 waa xayawaanada aan xurmada lahayn oo biyihii haday u baahan yihiin hata aan la siinaynin lagu weyse qaadanayo waa 6 taariku salaada qofka ka tagay qofka salaada ka tagay waa xayawaan aan xurmo lahayn kaliya waxa la sii karaa markuu tooba keeno oo salaadii dukado ayaa la sii karaa illa ilaahay muxuu yiri fa intaabu wa aqaamu salaata wa aatu zakata fa khallu sabila haday tooba keenaan oo salaad dukadaan zakada bixiyaan jidkooda u baneey ka leex walaalihiin waaye. marka qofka taariku salaadka
waxaa marka koowaad laga tooba dalbayaa inuu soo tooba keeno salaadii dukada. hadduu diido mooho biyo lama siinayo. wazaani qofka zinaystay almuxsinu ee haddana soo dhuraystay. zaani qof zinaystay almuxsin ee guur hore usoo maray. muxsinku uu soo dhuraystay waxaa laga wadaa guur hore usoo maray. qofka zaaniga ah ee zinaysta isagoo weliba guur hore usoo maray, qofkaasi rajmi baa lagu dilayaa, sida nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku sameeyey gabadhii la dhihi jiray alghaamidiya islaantii reer ghaamida la dhihi jiray iyo ninkii maacis la dhahayay, sidii bukhaariba uu wariyey. walmurtaddu kii diinta ka laabtay, walciyaadu billaah, ilaahan ka magangalnay, qofkii diintiisa ka laabta isna biyo lama siinayo. hortiisa lagu weyse qaadanaya oona u dhinto aduro. walmurtaddu kii diinta ka laabtay, ila nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man baddala diinahu faqtuluuhu, qofkii diintiisa bedela dila. ninkii diinta ka laabtood aragtaan, marka koowaad waa laga tooba dalbaya inuu kusoo laabto diintii. hadduu diido oo inkiryo lasoo taagnaado, markaas horaa la ysku dhaafinayaa, waa la dilayaa. waay walkaafiru gaalkii alxarbiyu ee dagaalka lagula jiray. walkaafir gaalka alxarbiyu ee dagaalku naga dhexey. gaalka waxaa jira mid aan la dilayninaa jira, gaalka aan xarbiga ahayn oon dagaalka kula jirin, ku dhibaynin, kaas xayawaan muxtarama waa la siinayaa biyihii. laakiin ninka gaalka ah ee islaamka dagaalka kula jira, islaamka raba inuu faylo gooyo, kaas biyo la sii maayo. walkalbu eygii alcaquuru ee fayla goyska ahaa. walkalbu eygii alcaquuru ee fayla goyska ahaa. eyga fayla goyska ah isna biyo lama siinayo. eyga mid waxaa jira waxtar leh, baa jira oo xoolaha la raacsado, lagu ugaarsado, wax la baraa jira. kaa noocaasa waa muxtaram waay, dilkiisana waa xaaraam. midka aan waxba dhibin, waxna soo gelin dad, sida midka magaalada iska joogjoogoo kale, kaas isna waa muxtaram sida muctamadka ah. iyo eygaas fayla goyska ah, kaa fayla goyska ah wax khilaaf kama taagna inuusan xurmo lahayn. xilli iyo xaramba waa lagu dilaa. haddii lagu arko xaramka dhexdiisa, haddii lagu arko waa la dilaa. walkhinziiru doofaarki wey. walkhinziiru doofaarka isagana sidoo kale waa la dilayaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka caaisha wuxuu ahaa sallallahu calayhi wasalam, qaala wuxuu yidhi 5 fawaasiqun waa kuwa faasiqyaalho daacada alla ka baxay. yuqtalna waa la dilayaa fil xarami, xataa xaramka waa lagu dilaa haddii la arko. 5 haddii la arko xataa xaramka dhexdiisa lagu dilayaa. yaa ka mid a 5taas? alfa'ratu doolli meel alla meesha lagu arko waa la dilaa. xaram iyo xilli intaba waa lagu dilaa. walcaqrabu dibqalooca ama xaaraanka, isna meeshii lagu arkaa lagu dilaa. walxudaya baashaa dafada la yidhaahdo, iyadana waa la dilaa xilli iyo xaram meeshii lagu arkaba. walquraabu dukaha isna meeshii lagu arko xilli iyo xaramba waa lagu dilaa. walkalbu eygii alcaquuru fayla goyska ahaa isna waa la dilayaa. xadiidkaas bukhaari iyo muslim labadoo way warinayaan. marka intaas shay fawaasiq baa la yidhaahdaaba, iyaga xilli iyo xaramba loo dhaafi maayo. marka kalbul caquur meel alla meeshii lagu arkaa lagu dilayaa. khinsiirkii sidoo kale. intaas xayawaan haddii marka aad biyo haysatid oo iyagiina ay ooman yihiin, biyihiina waysaqaad kuugu filan yihiin, saasaa u fiirina. qofka taariku salaadka haye salaada ma dukane, haddii markaas uu toobo keeno ilaahay baan usoo laabto waa dukanaya uu yidhaahdo, zaani muxsinkii isaga kaasi toobad laga weydiimaa xataa. waaya kii murtadka ahaa isna kii murtadka ah laftirkiisu waa sidaas oo kaleba. faslun haadaa faasilun kii wax kala saara waa. shuruudu tayamumi booraysiga shuruuddiisu 10 waa. booraysiga shuruuddiisu 10 waa. qofka markuu yidhaah waa booraysanaa maxaa laga rabaa?
qofku markuu yidhaha waa booraysana maxaa laga rabaa shuruudu tayamumi booraysiga shuruuddiisa 10 kow an yakuuna bituraabin carro waa inuu ahaadaa an yakuuna waa inuu ahaadaa bituraabin carro waxaan carro ahayn laguma booraysan karo nuuriyad laguma booraysan karo rinji laguma booraysan karo hadda nimankan maxay keeneen inay derbigan gacanta marsadaan ay yiraahdaan waa booraysanayna taasi ma ansaxayso ila ilaahay muxuu yiri fatayammamu saciidan saciid carrada la dhahaa waxaan carro ahayn laguma booraysan karo carrada maxaa shardi ah weliba wa an yakuuna turaaba carradii waa inuu ahaadaa daahiran mid daahira carradii maxaa shardi ah carro daahira inay ahaato carro daahira carradaas kabaha lagula socdo ama qashinka lagu daadiyo baan ku booraysana laga yeelmaayo inaad qoditan ka tagtid meel boor lana aa u tagtid taasaa muxuu ahaa lagu booraysan karaa geedaha salkooda carrada ah ayaa boorka laga helaa badan carrada boorka leh waayahay marka carradii waa inay daahir tahay haddana maxaa la rabaa waa laa yakuuna inaysan ahaanin mustacmalan mid la isticmaalay carradan waan ku booraystay haddana hadhowbitis ila iyadii aan ku booraysana laga yeelmaayo waa inaad gedisaa tii aad boor ka qaadatay iska qaad mustacmalay noqotay midda horese booraysa waa laa yakuuna waa inuusan ahaanin carradaasi mustacmalan mid hore loo isticmaalay waa inaysan ahaanin carra hore loo isticmaalay waa inay ahaataa waa inaa mid la isticmaalay aysan ahaanin waaya maxaa kaloo shardi ah waa laa yukhaaliduhu inuusan dheehin uusan ku darsamin wa ilaa yukhaaliduhu inuusan ku darsamin daqiiqun bur iyo wanaxwu burka wax lamida nuuriyad baa ku darsantay bur baa ku darsamay carro lama dhahayo wax kalaa lagu magacaabaa markaas magacii carranimada uu ka zuulayaa magac kale qaadane so marka carrada waa inaan wax kala ku darsamin maxaa kaloo shardi ah wa an yaqsuda waa inuu qasdaa wa an yaqsudahu waa inuu qasdaa ila ilaahay muxuu leeyahay fatayammamu erayga tayammama ayaa laftirkiisa waxaa loo isticmaalaa iqsadu u qasda at-turaaba carra u qasda carra raadi waa inaad carra u qasdaa carradii raadisaa maxaa shardi ah wa an yamsaxa inuu masaxo wajhahu wejigiisa iyo wayadayhi labadiisa gacmood bidarbatayni laba garaacis waa inuu carradii iyo wejigiisii iyo labadii gacmood laba dhufasho waa inuu ku masaxa waa inuu laba jeer ku masaxa wa an yamsaxa inuu mariyo wajhahu wejigiisa iyo wayadayhi labadiisa gacmoodba inuu mariyo bidarbatayni laba dhufasho laba jeer carradii uu soo qaaday waa inuu ku mariyaa mar wejigiibuu marinayaa marka labaadna labadii gacmood uu ismarinayaa qaabku uu isku marinayo waan sheegi doonaa furuulsha markaan ka hadlayno wa an yuziila najaasata najaastii waa inuu zuuliyaa wa an yuziila waa inuu zuuliyaa annajaasata najaastii awalan marka hore waa inuu soo istijaystaa nijaasta wixiiba nijaasa waa inuu iska soo suuliyaa isagoo nijaaso qaba inuusan booraysanin ayaa la rabaa haddii uu biyo heli karo waa haddii biyihii uu heli karo waa waaya wa an yajtahida waa inuu ku dadaalaa fi lqiblati qiblada qabla tayamumi booraysiga kahor qofkan isagoo wareersan inuusan booraysanin qibladii dhinacay ka jirto qibladii ma dhinacaana marka hore isagoon qibladii meel saarin inuusan booraysanaa la rabaa ilaa booraysigu ma aha weyse qaadkii camal ma aha ood cabaar ku joogjoogi kartid ma aha weyse qaadkii camal ood cabaar ku sugi kartid ma aha maxaa shardi ahoo kale wa an yakuuna tayamumu booraysiga inuu ahaado bacda dukhuulil waqtigu markuu galo kadib waa sii booraysanayaa cabaaraan sii joogaa ma jirto booraysiga waxaad booraysanaysaa marka salaada la galo markaasaad booraysanay horaa ka gale wa an yakuuna tayamumu booraysiga waa inuu ahaadaa bacda dukhuulil waqtigii markuu galo kadib waa inuu ahaadaa waaya wa an yatayammama
waa inuu u booraystaa likulli fardin farad kasta. salaadii maqribkii aan ku dukaday cishihii ilaa cishihiina way ii dhowrnaane ma jirto. cishihii waa u booraysanaya isagana booraysi kala u samayna. macnaha salaad lagulama dukanayo. waa in yatayamama waa inuu u booraystaa likulli fardin farad kasta waa inuu u booraystaa. waajib kasta waa inuu u booraystaa. ibnu cumar ayaa wuxuu yidhi yatayamamu likulli salaatin wa in lam yuxdith. yatayamam qofkii wuu booraysanayaa likulli salaatin salaad kasta wa in lam yuxdith yuusanba xadithin xadath yuu ka imaanin weysadiisan buurin. xadadka kuwii aan soo marayna waa qofka weysadu ka burto xadath asqara waa xadadkiisu waa xadath asqaraho xadath yar baa la yidhaha weysadii baa ka burto. qofka janaabada qabana xadath mutawasit baa la yidhaha xadadkiisu waa yaryaryahay. xaa'idka iyo nufasadane xadadkooda waxaa la yidhaha xadath akbar baa la yidhaahda. marka qofka saddexdaas xadath yayba ku dhicine salaad kasta oo waajiba u booraysanaya. sidaasi muxuu ahaa asxaabta ayaa wada qabta xukunka. marka 10kaas shardi markii la helo ayuu qofkii booraysan karaa. 10kaas shardi haddii shardi kamida uu buro booraysigana wuu buro. booraysigana wuu buro. faslun haadaa faasilunkii wax kala saara way furuudu tayamumi booraysiga waajibaadkiisu iyo faradayaashiisu 5 waa 5 farad ayuu leeyahay isagana sidii weyse qaadka. al-awalu midka koobaad naqlu turaabi carradii in la soo qaado waa carradii in la soo qaado. naqlu turaabi carradii oo la soo qaado waa naqlu turaabi carradii oo la soo qaado. wejigii iyo gacmihii baa loo qaadayaa. dhulkii aad ka soo qaadee wejigii iyo gacmihii aad u soo qaadaysaa. athani midka labaad anniyatu niyo waa carradii markaad soo qaadidba inaad niyeysatid inaad booraysanaysid. nawaytu farda alwuduu'i baa soma nawaytu farda tayammum dhe. anniyatu niyo way anniyatu niyo booraysi inaad niyeysatid waa waajib. haddaadan niyeysanin waxaagu eber bay noqonaya. inama alacmaalu binniyaat. shaqo kastoo la qabana waa in la niyeystaa. xadiidkii bukhaari iyo muslim ay warinayaan saas oo ah. athaalithu midda saddexaad masxul wejhi wejigii oo la masaxa wey. wejigii in la masaxa wey. famsaxuu biwujuuhikum wejigiina masaxa. araabic midka afaraad masxul yadayni labadii gacmood in la masaxa wey. ilal mirfaqayni ilaa labada xusul laga gaara. waayo qaabkeen u booraysanaa marka. carrada kow horta waxaa la rabaa carrada inay boor lahaato. carra boorle inay ahaato. gacmihii baa waxaa gelinaysaa aad carradii oo ku nuuxnuuxne. markaa ku nuuxnuuxisid adoon saan isku dhehaynin jaf. kadib wejiga waxaa ka bilaabaysaa sanka ayaa waxaa ku aadinaysaa labada gacmood meesha iska qabanaya. saad u mari hadduu go-an yahay khayr ku taa qofkii uu ka go-an. waaye waxaa sameynaya marka mar labaad haddana gacmihii gelinaysaa sidii oo kale geli jaf. gacantan faraha dhabarkooda ku aadi. suulka ha taagnaado faryaraduna ha taagnaato. soo wad halkaa markaa maraysid gedi. calaacasha ha marsiinin. gacantaas waa samaysa. gacanta kale sidoo kale haddana ku aadi faryarada iyo suulka taag. 3 farood oo kale ku aadi soo mari. halkaa markaa maraysid gedi. suulkii raaci faryaradii raaci. labadaas qaabkaasaa loo booraysanaa marka. waxaan samaynay kow gacmihii baan gelinaynaa. waa qasab inaan farihii carradii ku nuuxnuuxino. kadib wejigii baa waxaan ka bilaabaynaa sanka korkiisa soo wareeji. mar kale ku laabo. gacantaada bidix gacantaada midig calaacasheeda dhabarkeeda
ku aadi farta suulka faryarada taag marka halkaa maraysid soo gedi tan kale sidoo kale haddana samee ya ya saan gacanta bidix suulka taag wad ilaa xusulka gedi marka soo wareeji dhinacan suulka inuu ku aadaala ramaya saan dheh markaa gedinaysid saan u gedi suulka inuu suulka ku aadaa laga rabaa ay gedi suulka wad suulka inuu ku aadaa la rabaa usaa u raac marka labadii gacmihii iyo wejigii saa u masax alkhaamisu midka shanaad الترتيب kala hormarinta bayna almasxatayni labada masax in la kala hormariyo waa ibda'u bima bada Allahu bih ayuu nabi alayhi salatu wasalaam waxaad ku bilowdaan kan ilaahay uu ku bilaabay ilaahay markuu farayay in qofkii fa lam tajidu ma'an haddana biyo helin waxa la yiri fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum wajiga iyo gacmaha ayaa la hormariyay famsahu biwujuhikum wajigiina masaxa ayaa la yiri wajiga lagu bilaabo soo wajiga in lagu bilaabo la rabo wajigi mariya kadib gacmihii mariya saas la rabo faslu hada fasilun ki wax kala saaro waa mudilatu tayammum booraysiga waxyaabaha buriya 3 way booraysiga waxa buriyahay waa 3 ma afdal alwudu waysida wixii buriya ayaa buriya waysida wixii buriya oo dhan way burinayaan afartii shay ee mubdilaadka nawaaqidul wudu aha isagana way burinayaan qofkii marka uu booraystay hadii uu dhuuso ama ay qabato ay kaadi timaado wuu buray ama saxara imaato hadii muxuu ahaa ninkii iyo muxuu ahaa naag uu taabto ama naagtii ay nin taabato wuu buray intii oo dhan way ku buraysaa wariddatu wal ciyaadu billah in qofkii uu diintii ka laabto aridda diinka noqosho iyadana way burinaysaa waysada ayuu bedel ka yahay ilaana waaya waa tahaaratu daruura wa daruurana malaha qofka murtadka ah iimaankiisii ay la waayeen laakiin waysadii ma burayso dad markuu ridoobo isla markii soo laabto waysadiisa uu qabaa laakiin tan daruuro dhibaato ayaa keenta dhibaatadii darteed ayuu ku buraysaa watawahumul maa'i waxa kala burinaya watawahumul maa'i biyaha malayntooda tawahum inuu maleeyo uu is yiraahdo meeshaas gurigaas hadaad tagtid biyaa laga heli lahaa waa goorma inta yamama hadduu u booraysto lifaqdihi biyaha waayidooda marka hore aad booraysanaysay biyo la'aan haddaad u booraysatay biyo la'aan ba haddaad u booraysatay oo biyihii aad malaysid eberwa biyahaas aad malaysay ayaa darteeda kaaga burinaysaa ila biyaha waxaa lagaa rabaa markaad biyo weysid biyo aad heli weysid fa in lam tajidu haddaydnaan helin waad raadisa waa weys markaasaa heli la'aan imaan kartaa laakiin adoon waxba raadinin haddaad tiraahdo shaygan waa la waay eberwa mubdilaatu tayammum marka waa intaas waxay waysada buriya ridada biyo loo maleeyo ayaa burinaya Allah subhanahu wa ta'ala a'lam